marka ninka banaanku tagay aad runtii uga xumaaday arrinta noocaas oo kala ninka telefoon lagama qaban oo yiri hay'adii inuu galo gudaheedii looma ogola oo waa yaala marka ninkaas hadda garow waan ku kulanay waa arrin aad u xanuun badan runtii aniguna waan ka xumaaday maanta meel aad joogto Cabdiqaadir oo guriga aad joogto oo laga jecel yahay oo lagu rabo marka biri ilaahay wax qadar wax nooc walba ku yimaado in lagu takooro telefoonka laga qaban oo shaqadii laga cayriyo oo gunadii iyo mushaarkii laga goosto runtii waa arrin aad u xun بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وناكسن صاحب بيال كسو دوادا مركلي برامجدي أن نوغا براتين جنال كحيساها وركا وحين كسو قادنا برامج كلا دوان وحين لكرنا قار كميدا دادك الفنانين تا سيدو كلا هلا أبو الرضا دادك كقصلية إيا قيباها كلا برشدة أما دادك مقع كلا قيبتنا وقيب كميدا برامج كي حصوص وريا يحيساها وركا ألا وحين كنا ورياش قيبو دا كلا دوان كو صومري دعدوين كحنون كلا haddii aan la qaar macnaha loo geystay xarig qaar la dirdilay kuwa la handaday ugu yaraan iyo kuwa cagajugleen la soo kulmay iyo qaar ka soo cararay maanta waxaan nasiib u yeelanay inaan la kulanno Yuusuf Cabdishire oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed waliba kuwooda ugu fircoon waayihii ugu dambeeyay wuxuu in muddo ka soo shaqeynayay horta deegaanada Puntland TV-ga SBC iyo qaybo kale oo ka mid ah warbaahinta haatan waxa uu soo diga rogtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya nasiib ay la kulan Yuusuf soo dhaw Cabdiqaadir aad ma hasantahay waa ku faraxsanahay xisaab wararka in badan oo kamid ah anoo garow ama boosaaso ama meel kale ka daawan jiray maanta inaan Nairobi ku kalano runtii waana idinku dhiirigelinayaa shaqada aad haysaan dad badan oo Soomaaliyeed idinku xiran oo u shaqeysaan kuwaad ka qoslisaan iyo kuwa aad marka murjisaan macna haba dhacdooyin kala duwan marka aad ma hasantahay waa idin madciina sax waay bal Yuusuf waxaad naga bilowdaa bal taariikhdaada iyo saxaafadda iyo xilliga soo bilowday Cabdiqaadir ani saxaafadda ma ku badni sida muuqata daniyar baan ahay adii laakiin waxa ay taqaanaa waxa isleedahay ninkan waa waagi aad daawan jiray sabraanka dhigin jiray ugu dhaado si fiican marka ani saxaafadda waxaan ka bilaabay magaalada dhaho Cabudwaaq oo ku taal gobolada dhexe Soomaaliya galgaduud gobolka galgaduud abar 2011 meelahaas baan ku soo biiray ilaa xilligaas waxaan ka shaqeeyay raadiyaal kala duwan iyo telefishinno ugu dambeeyay telefishinka SBC oo fadhiyo Boosaaso oo aan ku biiray 2014 SBC waxaan ka shaqeynayay muddo 5 sano ku dhow 2 sano oo kamid waxaan ahaa tafaftire ama qofka ka shaqeeya wararka iyo in maaragtay wixii turxana laga saaro si lamid ah shaqada aad garanaysid warbaahinta kamid ah marka aad ugu faraxsanahay runtii muddo badan baan meesha ka soo shaqeynayay alxamdulillah maanta waxaan aaminsanahay inaan joogo meel fiican oo aan isdhihi karo bulshadeeda waan ugu shaqeyn karaa marka heerarkayga intaas kala duwan baan soo maray telefishinno iyo idaacado badan iyo ma soo marin tusaale waxaa laga yaabaa haddaan maqdisho joogi lahaa in la dhihi lahaa sida Cabdiqaadir Cumar Cabdillah kale 20 telefishin ama 20 idaacada ka soo shaqeeyay aad iyo aad laakiin ma badna CV-gay waay marka baad doortay mase dad baa kugu qalqalay oo kale Yuusuf waxa ku fiican inaad wariye noqoto mase adaa jeclaas inaad wariye noqoto والله عبد القادر horta hal mid jirta qofka hadii uu wax doonayn ama uu san jeclayn marna ma sameyn karo hadii maanta aad arkayso qof iskuul lagu qasbaayo ama waxbarasho lagu qasbaayo lacagta la ku dhamaanaysa qofkaasna xum baranayo laakiin qofku waa inay isaga ka timaado marka waxa aaminsanahay mihradan saxaafadda anoo intaan ka siiyar baan jeclaaday oo aad u yar runtii dadka qaar ay ila yaabi jireen anoo barnaamijka caruurta ka qayb galay ilaa markii dambe la ii dhiibay barnaamijka la igu aaminay ilaa markii dambe warar aan u gudbay marka waxay ahayd hobby ama aragti aniga igu dhalatay iyo jacayl aan u sameeyay kadibna alxamdulillah ilaahay waa igu guuleeyay maantana waa ku dhex jiraa waay marka inta badan marka koonfurta Muqdisho laga hadlay iyo laga bilaabo gaalkacyo aagaas inta badan sheegaa in dhibaatada ugu badan wariyaasha lagu geysto deegaanada aad joogto aad bay u nabdoonaayeen maxaa bal is leedahay ويرا wax qalqalka guriga kugu soo mara wallahi khatarta amniga sida sheegaysay saaxiibada ma kala simanahay qof saaxiibkaaga oo wada shaqeynaysan ama Muqdisho jooga ama meel kale ha joogo marka uu ku yiraahdo dhibaato noocaas ay haysata ama la dilo laftirka waxa kugu tahay cabsi gelin iyo argagax kale laakiin sidaas ay tahay kama naqoonsanay inaan u shaqeyno bulshadeena waan shaqeynayna wali shaqadeena waan ku jirnay aniga ma jirto dhacdo toos aan ula kulmay ama handadaad ama xarig ama wax la mid in lagu yiraahdo mooyee wali ugu ma dhicin laakiin in lagu soo waco dadka qaar ay ka xumaadaan wax aad sheegtay ama wax aad tabisay ama dhacdo aad ka sheekaysay waa macquul
way jiraan xilliyada qaar in dawladdu ay dhibsato waxaad sheegtay kooxo kale ay dhibsadaan waxaad sheegtay laakiin dhibaato igu dhacday ma jiro marka laga yimaado handadaada aan saaxiibaday kala samana waayahay mar walba horta oo war la sheego cid bay xoogaa dadka dhan umawada farxad gelinayso meesha aad weliba aad ka joogtay oo tafatirnimada waa hawsha ugu adag marka warbaahinta la yidhaahdo shaqaalihii aad iska hor imaanaysaan laga yaabaa warka maamulka qaarkood wararkooda inaad joojiso bal iyada laftigeeda maxaa caqabado walaa caqabadaha waxaa kamid ah cabdiqaadir waxyaabaha wax ka dhalan jireen ama culeysyadu ka imaan jireen waxaa kamid ah tusaale marka dagaaladu dhacaan tusaale waxaa laleeyahay waxaa la isku diray xuduudda puntland iyo somaliland waxaa la leeyahay dhibaataa dhacday ama qofaa la dilay sidee loo tibinayaa sidee loo sheegayaa yaa sheegaya xilliyada qaar waxaa cabsi naga qaban kartaa warkan yaa sheegaya qofkii loo dhiibi lahaa baa wariyii tabin lahaa cabsi darteed sababtoo qofkaan ada amnigiis ma damaanad qaadi kartid gurigu aadaya hadhow keligiis gurigiisa kuma waardiyanaysid xitaa cabsida waxay jiri doontaa marka aad kasoo degto wadankii sababto waxaad ka fikiraysaa waalid iyo walaal iyo ehel wadankii kaaga maqan marka cabsida noocaasa way ku badan tahay soomaaliya marka la fiiriyo weliba xilliyada qaar waxay ugu qasbi jirtay aniga oo aan war ku qornayn ama ka shaqaynayn inaan warka anigu galo xilliyada qaar haa iyadoo aadan qofna ku aamini karin waxaad dhihi kadhaa qofkan intaad wax u dhiibto ama wax fikradiisa ku daraa ama wax khaldan ku daraa ama wax dhow ladinku qabsado oo dawladdu dhibsataa mar walba adiga maxkamada taagan tahay mar walba adiga waxaa lagaa rabaa ha idaacaddan hadday khalad samayso ama telefishinkan uu khalad sameeyo maxkamadii ama hay-adihii garsoorka waxay raadinayaan yaa tafaftira agaasimo laysma weydiinayo yaa idaacaddan tafaftira ka ah yaa telefishinkan ka marka mas-uuliyad weyn baa ku saaran haddaad sidaa u shaqaynaysid waayahay culeyskaas intii macnaha ku saarnaa marna ma kusoo martay mar ay ku yeereen ama hay-adaha amniga ama dawladdii puntland ay ku yeerto oo lagula xisaabtamo war la sii daayay keligii lama yeeri jirin hay-adda dhan baa loo yeeri jiray way jidhaa xilliyada qaar qof sheeka hadda ka hor aan ka samaynay qof cabanayo dhibana ahaa oo wuxuu ka cabanayay hay-ad garsoor ama qof maxkamad markaas ka tirsanaa oo xil hayay puntland marka qofkii markuu intii sheegay telefishinka baa laga baahiyey waxaa la yidhi qofkan waa dhibana waxaasu ka cabanaya xukun noocaasa qof hadda ka hor familigiisa oo dhibaato loo geystay oon dacwadii loo simin adiga ninkii telefishinka marka caawa kale laga sii daayey ninkii kale oo xilka hayay baa nala soo hadlay wuxuu yidhi waa ku khaldantihin warkaas inaasaa igu samaysaanna ma ahayn dacwaddii meel fogay gaartay ilaa maxkamadii loo yeeray maxkamadii lanooga yeeray maxkamadii la tegey agaasimihii dad kala tageen oo la yidhi arrintan si hoosaan ilaa wuxuu yidhi nimankan in maxkamad la ii saaro waaye saasaana qabaa annagana middaan isku haleynayna waxay ahayd xogtan horta maxaa qiiqa markii hore aan sheegaynay baa waxaan isweydiinay waxaan aan sii daynayna run may hadday run yihiin waxba kama walwalaysa sababtoo qofkan muwaadinka xaq u leeyahay inuu hadlo inuu cawdo noocuu raba ha u dhiibto cadashadiisa fikirkiisa inuu dhiibto marka caqabadaha noocaasi cabdiqaadirow soomaaliyana waad kasoo shaqaysay qof kastoo kasoo shaqeynaya waa dareemi karaa way jiraan maalin walbay dhacaan sanad walbay dhacaan waa bad waayahay marka waxaan rabaa bal sheekooyin kale ayaa suubinaysa ayaan daawaday sida qof aids qabo oo kale oo aad la kulantay oo aad kasoo warramaysa marka bal qofki in bulshada loo bandhigo siday u arkayeen xilligaas markaa xogtaas aad soo bandhigaysay adi laftigaas si u dareemaysay in qof aids qabo oo soomaaliya joogo oo dadka soomaaliya fikirka ay ka aaminsan yihiin iyo qofki inuu go-doomayo oo laga kala carayo macnaha bal see xogtaas u dooratay inaad soo bandhigto wallahi horta waxay ku beegnayd sheekadan markaan soo gudbinaynay waxaa laga jooga hadda dhowr bilood ka hor garow waan joogay waxay ku beegnayd maalinta caalamiga ee xuska xanuunka h i v-ga horta xanuunka ilaahay baa keena alxamdulilah qof walba oo caafimaad qabana ilaahay baa caafimaadka siiyey waa inaan ku mahadnaqnaa marka dadka noocaasa bulshadeena bay kamid yihiin waxay la kulmaan takoorka noocaasa wuxuu uga imaanayaa qeyb inagii kamid a meel kale laga soo takoori maayo inageen nagu dhex nool yihiin dadkeena ehel baan nahay waa isku abtirsanaynaa waa dad deegaana dad soomaaliyeed dad waalidiin dad waaweyn qaarkood ku jira marka sheekada aan ka warramayno xiisaha lahayd waxay ahayd taliye saldhig galbeed garow haysta oo h i v-ga uu ku dhacay hadda muddo dhowr bilood ka hora gabadha qaadsiisay siduu sheekada noogu dhigay isaga gabadhii sida uu sheegayey wuu cafiyey markii arrintan ay ku riday isagu laftarkiisa ciidan buu ahaa reer kaluna lahaa dhowr ciyaala u jooga taliya bashiir halkan ka salaamaya runtii qof qiimo badan waxaan ka dareemayaa ninkaasi inuu ahaa nin hiigsi leh ama marka la yiraahdo qof hami leh oon u joojinayn wuxuu caqabado kala duwan ula kulmay puntland laftarkeeda way dhiirigelisay arrintaas dalacsiiyey darajadiisii karaa loo qaaday awal wararaa soo baxayay xitaa ku saabsanaa in taliyaha xilka laga qaaday oo shaqada laga eriyey madaxweyne ku-xigeenka hadlay wuu beeniyay arrintaas mar kale aan la kulanay isagoo xabsigii jooga
shaqadiisa ku jira maalinlaha ahayd oo labisan oo shaqaysanaya waa aragtaan filaya marka sheekadaas waxay ahayd mid runtii damiirka ummadda Soomaaliyeed si weyn u taabatay muddadii aan ka soo warramay laftirkeeda dad badan aan isku baranay asxaab badan ay ugu soo raacday oo hore iyo aqoon maxaa falcilad kaaga yimid marka dadku waxay dareemayeen in dadkan ay mudan yihiin in laga warramo waa dad dhibaataysan looma ogola qaarkood in guryaha laga kireeyo qaarkood looma ogola inay bulshada soo dhex galaan qaarkood reerahoodii baa deeriyey waxaan la kulmay nin igu yiri waxaan ahay askari ka tirsanaa ciidanka badda ee Puntland maalmo anoo shaqo ku maqan buu igu yiri oo magaalo la yiraahdo Garacad oo ka tirsan gobolka Mudug ku maqan baa waxa ila soo hadlay buu igu yiri nin ii sheegay inuu yahay taliye wuxuu igu yiri ku soo xarad xerada ugu weyn waxay ku taalaa Boosaaso markaan Boosaaso ku laabtay xerada ninkii wuxuu igu yiri baaritaan ay maraan marka askarta oo marka ugu horeyso qofku xerada ka baxay ama soo laabanayo ajaniba maamusha waa la baaraa qofka guud ahaan cudurrada faafa iyo wax la midka laga baaray ninkii marka la baaray muddo kadib adu 3 bilood kadib waxa lagu ogaaday inuu xanuunka ku dhacay isagu soo ku sheekeynay reer bulaha ama uu noo sheegay wax maaragtay Google Laafa oo sameeyay ma jirin marka wuxuu yiri aniga shaqadii markii sidaan u shaqeynay askar la jecel yahay baan ahaa taliye uu jeclaa maalin walba ii yeeri jiray shaqo kasta oo gaar ah uu ii dirsan jiray howlgallada ugu muhiimsan ana la ii diri jiray markii cudurka laga helayna taliyii maalinba ii yeeray nimankii meesha haystay waxay ugu yiraahdeen niyo waxaan ka rabnaa dalkan midda u soo shaqeynaysay saasa soo ahayd marka niyo inaan ku fasaxnaa rabnaa lacagtaadina waa qaadanaysaa xanuunkaasana laga helay HIV sidii markuu u tagay yarkii dhalinyarada shaqadii ka tagay ninkii adigu wuxuu noqday hadda muddo kadib ballant waxay idin loo la siiyo mushaarkiisa ama lacag guna u dhiganta bil walba la siiyo reer u lahaa ilmu lahaa ninkii markii hore waa la jeclaa askartu ka tirsanaa markii kadib wax telefoon ka qabto waayay ninkii tani meesha iyo hay'adda agaasimeedina waxay u ballan qaadeen sidoo ii sheegay muuqaalkiisana waan hayaa in mushaarkiisa ama xaqiisa uu qaadan doono laakiin si xanuunku uusan u faafin oo gudaha askarta uusan ugula jirin banaanka u baxo laakiin askari meesha ka tirsanaa oo ahaa xaquna u leeyahay qofka hadduu xitaa howlgab noqdo xaq u leeyahay hay'addu ku leeyahay marka ninka banaanka u tagay aad runtii uga xumaaday arrinta noocaas oo kala ninka telefoon lagama qaban oo yiri hay'adda inuu galo gudaheedii looma ogola oo waa yaala marka ninkaas hadda garow waan ku kulanay waa arrin aad u xanuun badan runtii aniguna waan ka xumaaday maanta meel aad joogtid Cabdiqaadir oo guriga aad joogtid oo laga jecel yahay oo lagu rabo marka biri ilaahay wax qadara wax nooc walba ku yimaado in lagu takooro telefoonka laga qaban waayo oo shaqadii laga cayriyo oo gunadii iyo mushaarkii laga goosto runtii waa arrin aad u xun waana ka xumahay ilaahay wuxuu rajeynayaa inuu wax khayr qabaniga ugu bedelo hadda waxa haya taliye Bashiir iyo xaaskiisa baa gurigooda la degan yahay iyaga cunos iyo taliye la nool HIV waa Bashiir isaga dhiirigeliya isaga iyo xaaskiisa waana u mahadcelinayaa runtii way dhiirigeliyaan daawadii buu qaatay ayaan daawada joojiyay hadda dib buu bilaabay daawada markasta uu qaatana difaac jirka ay caawinaysaa soo laabnaa way ugu dambeyn sheekada waxa jirta aksoo soo bisay dawlad deegaanka ninka soo laabtay Europe oo isna sida oo kale loo takooro kaliya shaqo uu qabsaday dawaar la ah oo meel dhaqayo bal arrintaas wuxuu ka shaqeynayay ninkan waxa la dhaho doobiga ama meelaha dharka lagu dhaqo lamadaayo laga dhahaa doobiga waligaa marka ninkaas waxa la oran jiray Saadiq waxaan ku kulanay meeshan la yiraahdo Sadiiq waxaan ku kulanay Jigjiga waxaan ka wareystay sheeko qaybo kamid ah warbaahintan hore ay u tabiyeen oo ku saabsanaa takoor qoyskiisa kala kulmay ninkaas wuxuu ii sheegay inuu dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Finland dan qaldan mise Denmark uu yiri buu ka soo laabtay marka sheekadan ka sameeyay waxay ku salaysnayd shaqadiisa adoo dibadda ka soo laabtay ama wadan qurbaha oo Yurub ka soo laabtay inaad inta wadankii ku soo laabato ama deegaankaaga ku soo laabato Jigjiga intuu ku soo laabto inuu doobi ka shaqeeyo laftirkeeda macna kale sameynaysa marka sidoo ii sheegay qoyskiisa baa ku takooray waxa lagu takooray shaqadu ka shaqeynayay nin dad dibadda ka soo laabtay waxay anoo reerkeena uma qalmaan in shaqada noocaan qof ka shaqeeyo inay noqdaan marka waa fikradaha aan aad ku la yaabay marka dadka Soomaaliyeed aan nahay oo dhamaantan aan rabnay inta soo labisan inaan wada xafiis fariisan shaqadeena ayaa noo qabanaya hoose إلا دتك وحبي بين درك الله رق وحبي بين عندي الله كره وحبي كبير الله بعلشة مركا مقف أجنبي أنك شقيسينين كل يوم وضع حنا مركا كل يوم حربنا أنا حفيز فريسان مركا نيجي عقبات داسة هيستي وحنا كل ما يجبر ولا شيء سنقلب وتجني مركا شيء كذا سميني وحنكو محي عقبات دنتها واحد تري أنا جد دقن لنا هاي واللي بدد واحد يقول هذا الحين جالس محد وجاسيو دت كان منصب كلا سميست سفي عن هذا أو beelaha Soomaaliyeed beelaha ay isticmaalaan gaas waxa beeldaji Suudaan malaaq
waxay ugu tiri anigu waxaasaan nahay si gaara reeraha noocaasaan nahay umana qalan inaan ka hogaanka inoo reerkaan nahay ha inta sida uu marka hore ay ahayd sheekadu markii dambe reerkiisa uu soo laabtaan filaya xitaa reerkiisa waa laga kaxeeyey gabadhiisa laga kaxeeyey dadkiisa takooray marka ninkii hadda wuu balaariyay shaqadii madaxweynaha dowladda deegaanka qaabilay Mustafa Agshar jigjigu ku qaabilay madaxweynuhu la kulmay hadda wuu balaariyay meeshii wuxuu ii sheegay in qaybo kale ku soo kordhiyay suuliyo ku soo kordhiyay meel suuliyo dadku galaan oo shilmaan la iska qaado lacagta birta oo dhowr shilin inta la iska qaado lagu galo lacag lagu galo marka aniga leeyahay Sadiq runtii tusaale fiican buu bixiyay wuxuu bixiyay in dadka ka imaanaya Europe ama Mareykan ha noqoto oo kaliya madaxweyne wasiir inoo ay xil noo soo raadsan ama xil lacag naga soo doona ama masab ay dadkii dalka wax ku soo kordhiyaan ninkaas hadda fikradu la yimid dadkii kale dhiirigelin u noqonaya isagoo dibadda ka yimid inuu aragtida noocaas soo kordhiyay inuu yiri dadkii shaqo abuur baan u sameeyay dad bu shaqo abuur sameeyay dhalinyaro ah oo Soomaali iyo ajnabi leh marka runtii dhiirigelin fiican ay ahayd dad badan way ka falceliyeen muddadii aan baahinay kadib aad baa maasan tahay Yuusuf Cabdishira ayuu ahaa oo ka tirsan wariyaasha Soomaaliyeed oo aan kula kulanay magaalada Nairobi isla markaana aan ku wareysanay qayb kamid ah xusuusta wariyaha ee xiisaha wararka dhanka kaamirada wuxuu ahaa farsamada Cabdiqaadir Koronto dib u kulmi doono Cabdiqaadir Abdullahi ku dhaafay sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته يوسف مركلي. Thank you.